Assalaamu calaykum. Haddii ay tahay shirqool aad isweydiin jirtay inay tahay wax la soo maleegay, ogow maanta waxay tahay isboortiska iyo ciyaaraha fudud ee markaasi tartanada lagaga qayb galo dabcan. Mawduucan ayaan kaga hadlaynaa dhinacyo kala duwan oo isboortiska ah iyo sidoo kale dhalinyarta Soomaaliyeed ee uu cadaraha ka dhigay dabcan fagaaraha Tokyo 2020 ee Olombikada caalamka ee ka dhacaysay waddanka Japan. Sidan waa la wada socono labada wiil ee Soomaaliyeed haddii aan ugu hormarno mawduuca. Labadan wiil waxay wacdara ka dhigeen Olombiko 2020 oo ka dhacay waddanka Japan ee magaalada Tokyo. Halkaas oo orodyahannadan Soomaaliyeed inkastoo aynan u cararayn dalkoodii hooyo oo ay matalayeen wadamo Yurub ah oo ay guulo u soo hooyeen wadamo kale, haddana waxaa la dareemayaa arrin cajiib ah oo uu sameeyey orodyahanka Soomaaliyeed ee Nageeye Cabdi, kaas oo ka caawinayay saaxiibkii Bashiir Cabdi sidii ay markaasi guusha u wada hanan lahaayeen, iyagoo kala galay kaalinta labaad iyo ta saddexaad oo ah saddexda loogu horeeya ama markaasi loo ogol yahay, isagoo markaasi ugu baaqayay walaalkiis inuu si degdega u soo gaadho ama uu u dheereeyo, oo markaasi isagoo u qacan haadinayay oo leh soo orod, wax yar ayaa inoo hadhay, soo orod, oo markaasi taasi ay u noqotay Bashiir Cabdi dhiirigelin aad u daran, taas oo markaasi uu karar qaatay, sidaasna ugu guuleystay kaalinta saddexaad ee tartankii ka dhacay halkaas. Inkastoo intoodaba uu ka horreeyay nin kale oo Kenyaan ah oo orodyahan ah, haddana waxaa la kala hananayay kaalmaha, maadaama uu markaasi Nageeye Cabdi ayaa yidhi waan ordi karayay balse wuxuu u joogsaday oo markaasi muusan joogsan dabcan uu orday, laakiin uu ugu baaqay in Bashiir Cabdi uu sidoo kale soo dheereeyo isagoo u qacan haadinaya, taas oo noqotay in tooshka caalamka oo dhan lagu fiiriyo wiilashan Soomaaliyeed. Haddaba waxaa suurtagal inaad isweydiinaysid maxay tahay sababta ka dambaysa in aysan dalkoodii u ordayn oo dalal kale u cararayaan. Horta marka koowaad qof walba ayay ku xidhan tahay inuu u matalo dalkiisa hooyo iyo sidoo kale inuu ka fikirayo arrimo kale oo ah dhinaca mustaqbalkiisa, taas oo ay suurtagal tahay inuu doonayo in waxyaabo mustaqbalkiisa uu guulo muhiim ah isagu sii gaadho. Haddaba isboortiska haddii aan usoo noqono waa shay cajiiba oo caalamka oo dhan dabcan bulshada ama dhalinyarnimada iyo dhalinyartoo dhan ay isha toos ugu hayaan, waana waxa markaasi muhiim u ah dhalinyarta inaysan ku mashquulin waxyaabo kale. Tusaale ahaan oo kale dhalinyar yaryara inaysan isku daalin dhinaca iyo siyaasadda qallafsan, waxyaabaha markaasi khatarta keenaya, balse inay u horseedo isboortiska ama kubadda ha noqoto ama orodyahan ha noqoto ama feedhyahan ha noqoto, dhammaantood xataa marka la tartamayo ee fagaarayaasha caalamka la joogo in ay guul u tahay dalkooda. Dabcan arrinkan waa muhiim sumcad ahaan, in dalka ay sumcad u tahay in guulo noocan oo kale loo soo hooyo, haddii tahay orodada iyo sidoo kale dhinaca kubadda ama kubadda kolayga ha noqoto, tacagta iyo sidoo kale feedhyahanada, dhammaantood waxay kusoo ururayaan sumcad aad u ballaaran oo ah dhinaca wadaniyadda in ay muhiim u tahay dalka. Haddaba guulahan ayaa waxaa soo hooyin kara oo keliya cidda dalka u dhalatay ama cid kale oo meel kaleba kasoo gashay sida dhalinyartan Soomaaliyeed oo kale. Markaan kasoo noqono dhinaca iyo sumcadda waddanka ay u leedahay ciyaarahan la dheelo ee la ciyaaro ee markaasi tartamadan adduunka ee laga qayb galo ee fagaarayaasha caalamka, waxaa sidoo kale soo raacaa dhinaca dhalinyarta. Waa muraayad gooni ah oo markaasi muhiim u ah dhalinyarta inay markaasi qayb ka noqdaan ciyaarahaas, guulahaas caalamiga ah, kuwa gudaha dibadda. Haddaba inta badan waxaa qabanqaabiya hay'ado caalami ah iyo sidoo kale hay'ado maxalliya, dhammaantoodba waxaa la iska kaashan karaa arrimahan la xiriira tartamada caalamiga ee kala duwan ee aadka u faraha badan. Waxyaabo fara badan ayay mustaqbalna u yihiin, sidoo kalena ay masiir iyo turjumaad iyo sidoo kale fariin ka bixiyaan, sida orodka oo kale, kubadda cagta oo kale. Kubadda cagta dalal ka mid qaaradda Afrika oo iyadoo ciyaartii ay wax yar ka harsantahay in la ciyaaro uu dalkana dagaal ka socday, in dhalinyartii ay diidaan inay ciyaaraan ilaa iyo inta la ogolaanayo in dagaalka la joojiyo.
dal Afrikaan ayay ka dhacday dabcan. Haddaba muhiimad aad u ballaaran ayay leedahay, gaar ahaana xidigaha la taageero ee caalamka, in markay u soo jeestaan masiirkooda iyo markaasi caqiidadooda dhabta ah ee ay aaminsan yihiin in ay isdul taagaan. Waa waxa ugu muhiimsan ee ah inuusan qofku ahayn qof kaliya socda oo ay qolfoof ku jirto, oo markaasi qiyamkiisa iyo masiirkiisa ama waddan ahaato ama markaasi caqiidadiisa ahaato inaysan waxbaba ka reebi karin. waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee horumarka dhalinyarta u horseeda ama markaasi horumarka weyn ee dhinaca sumcadda iyo dhaqaalana laga samayn karo oo u horseeda waddanka iyo sidoo kale bulshadaba. waddanka Brazil oo kale waxaa ka soo jeeda ciyaartooy fara badan oo caalami ah oo heer caalami ku ciyaara, kuwaas oo ku dhiiri gelinaya dalkoodii dhalinyarta ka soo jeeda in ay wadadooda soo qaadaan halkii ay kaga mashquuli lahaayeen waxyaabo kale oo dhibaato u horseedi kara dalka, ama siyaasad ha noqoto ama waxyaabo kale oo qalafsan. xataa kubadda cagta waxay soo gashaa dhinaca iyo markaasi siyaasadda iyadoo noqoto loolan la isku marinayo. inta badan ciyaarahii imika Olympic oo kale ka dhacay, tusaale ahaan haddaan soo qaadano waxyaabaha la tirinayay iyo biladaha iyo asaarta lagu kala guuleysanayay, dabcan dal walba sida ugu guuleystay hadday tahay markaasi orodada ama markaasi tartanka dhinaca kubadda ama markaasi orodka ama marka dabaasha, waxyaabo kaloo aad u fara badan feerka. haddii aan markale tusaale usoo qaadano ama aan isdul taagno qodobka Soomaaliya oo ah waddanka Soomaaliya, waxa uu matalaysay gabadh Soomaaliyeed iyo sidoo kale iyadoo ay dad kalena jireen, laakiin gabadhan ayaa markaasi markii calanka Soomaaliya la soo taagay ay markaasi u tahay sumcad inay tahay, xataa ayaysan guuleysan laakiin ay sumcad tahay inuu ka dhex muuqdo meeshan inay tahay muhiim. oo markaasi sida tusaalaanka Ramla Cali gabadhaas oo dadaal weyn u gashay, balse nasiib darro mar walba wax walba sidaad ugu tala gashay ma noqonayaan, wax walbana waxay ku socdaan qadarta Eebe. haddaba haddii aad is leedahay waa waxyaabo lasoo maleegay oo shirqool ah oo wax lagu dheelhabanlaabinayo, fahan heerka uu taagan yahay kubadda ha noqoto iyo waxyaabahan kale caalamiga ah in ay tahay masiir iyo muhiim arrinka ugu muhiimsan ee dhinaca iyo wadaniyadda ee la xiriira caqiidada iyo waxyaabo fara badan inay wax walba ku qotamaan oo aysan ahayn wax ku dhafo ka dhaqaaqa wax sidii mataqaanaa dastuur la qoray oo kale, yacni wax la qoray oo meel la dhigay kadibna shuruudahaas la maraya inaysan ahayn ay wax walba ay leedahay wax gooni ah iyo tallaabooyin la maro. dhalinyarta Soomaaliyeed ee ku guuleystay kaalmaha koowaad aan idhaahne labaad iyo tan saddexaad, maxaad u malayn lahayd haddii u cararayaan dalka Soomaaliya? dabcan guul ayuu ahaan lahayd iyo sumcad aad u ballaaran, waxaana meesha ka bixi lahaa fikirka laga aaminsan yahay waddanka. in la yareeyo fikirka caalamku ka aaminsan yahay waxay ku xidhan tahay hadba dadaalka bulshadaas ay la timaado iyo horumarka ay la timaado. wadamo fara badan ayaa horumar dhinaca tiknoolajiyadda iyo waxyaabo fara badan gaadhay, iyo sidoo kale dhinacan waxyaabahan ciyaarahan fudud kuwa culus caalamka oo dhan ka dhaca, kuwaas oo dhinaca guulo muhiima u horseeda wadamadooda, kuwaas oo markaasi ka dhigaya in dalalka qaar loo aqoonsado hoygii kubadda cagta, in sidoo kale loogu yeero waxyaabo fara badan oo aad loogu hirto. waana waxyaabaha ay bulshadu xiiseyso. tusaale ahaan oo kale ciyaartooyda caalamka waxaa lagu kala iibsadaa balaayiin dollar, arrinkaas oo ka marqaati kacaya heerka ay gaadhsiisan tahay inaysan waxaan ahayn wax dhayal ku aas-aasan, in aysan ahayn wax yacni iska fudud, inay tahay arrin aad u ballaaran oo muhiim ah in uu orodyahan ama markaasi feedhyahan ama markaa xidig markaasi kubadda cagta in uu mushaar ahaan u qaato intaas oo bilyan in lagu yiraahdo. arrinkan ma ahan wax la dhoodhoobay oo ay cidi ka dambayso, laakiin waa wax caalamka oo dhan ka jira oo markaasi tartamo loogu kala qaato sumcad dhaqaale oo markaas muhiim ah. arrinkan waa arrin muhiim, waxaa suurtagal in bulsho badan oo Soomaaliyeed ku baraarugsanayn
hadday tahay dhinaca orodka, tartamada kale ee fudud, waxyaabaha kale ee laga qayb galo inay tahay wax aad u muhiima. Mawduucan intan ayuu ku egyahay. fadlan muuqaalka dug soo gaadhay like saar iyo subscribe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.